ma tahay nin dadaalo dantiisii ka adkaado dalkiisii anfacaya waa barnaamij cusub oo la magac baxay Daldhis oo galab walba Jimcaha ka daawan doontaan TV-gan caalamiga ee Somali Channel barnaamijkan ayaa wuxuu diiradda saari doonaa isbedelka cusub ee Soomaaliya ka socda way bedelmeen taariikhdina way garteen waana soo noqdeen haddaba waxa isweydiin mudan waa maxay doorka looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed waasa maxay doorka looga baahan yahay madaxda haddii dadaalka ay madaxdu wado dadku ay gacanta qaban oo iyagu iscafiin oo khilaafka iyo qabyaaladda iyo xasadka ayaan iska dayn madaxdu dadkii oo dhan ma aha meel wax ma gaarsiinayso hadhowna eedaa ma qaadi karto si looga gulbo marxaladan cusub ee kala guurka doorkee ayay shacabku ka ciyaari karaan Soomaalida iskale tala annaga inoo taala ajnabiga iyo saaxiibadu wayna kaalmeyn karaan waxba nooma sameyn karaan nabadna nooma keeni karaan dawladnimada nooma keeni karaan dalkana nooma dhisi karaan haddii aanay annaga naga imaan waa samaxay ahmiyadda laga leeyahay barnaamijkan Daldhis waxaan rabaa marka inaad maal gashatiin inaad timaadiin waxaad ka samayn karin Yurub aadna ka samayn karin baad ka samayn karaysiin marka dhulkaan ku soo noqda barnaamijkan Daldhis muxuu ka hadlaa muxuu ku salaysan yahay inay waddankoogii dhisi karaan marka jid cusub iyo hawl cusub oo macaan oo didid badan ay noo furanto waxay dhahan Soomaalida rag tashaday marka rag la leeyahay waxa laga wadaa dadka oo dhan rag tashaday cir waa toli karaa tararayta ka labadeed dadka haday tashadaan oo isku duubmaan oo inay wax qabsadaan ay damcaan dhul iska daayay cirkay toli karaan waxaan idin kula talinayaa diasporada waddanka investment ku sameeya u soo noqda maskaxdii aynu la soo baxnay dib aynu ugu soo noqono dalkeena aynu hagaajisano kuwiina dibadda jooga ee guryaha yaryarka ku jira cankabuudka ah dhulkiina quruxdiina arka dhulkiina quruxdiisa arka baddaan bal arka yaa iska leh shacabka Soomaalidu waxay u malaysaa dhulkan inuusan asagu lahayn dad kale leeyahay war dhulkan aan idin fahamsiinay adinka iska leh baddaan weynkii ka badatay ciidan quruxda badan ee cad adinka iska leh Soomaaliba iska leh mar kale Soomaaliyeed dawlad la'aantu waa nagu raagtay yaan loo kala harin markaan inaan dawlad yeelano haddaba barnaamijkan Daldhis oo lagu eegayo laguna raadinayo si dalka dib loogu dhisi lahaa haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato la soo xiriir barnaamijkan Daldhis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ملبا أدونك أتك جوكتان بقى كسو دوادا تيفي عالمي الصومالي جانل وبرنامج كيني Daldhis أد عالابا حلقانا وكلا أنه هو دي سو كود بنشرني برنامج كان برنامج عالابا أن كبور نكون دير قلنو إني دادكو دالك هذا ديستان بوغو هذا ديدان أيانو قلب والبوحان وكو إغنا قبل كميدا قبل الصومالية بايدابا يبولو بردي يبلدويني يبرعو واسومرني وقلبتا يبنغدرغاسين يمغالة دي بوساسو barnaamijkeena galabta waxaan ku soo qaadan doonaa gagida diyaaradaha cusub oo laga dhisayo magaalada Boosaaso inta aan martideeda qiimaha la idin gudagelin aan dhageysano warbixintan uu noo soo diyaariyay Maxamed Deeq Cabdalla nooga soo diray magaalada Boosaaso maatanid Abuukar Cawaale iyo barnaamijka Daldhis toddobaadkan gabagabada waxa magaalada Boosaaso shacabkeeda ay u dhigtaagayeen hawsha garoonka diyaaradaha Boosaaso oo dhismihiisa la bilaabayo gaar ahaan dhabaha diyaaraduhu ku ordaan ee runwayga waxaana 29 bishayna soo dhaafnay Boosaaso soo gaaray in ka badan 20 shirkadood oo ajnabi iyo Soomaali isugu jira kuwaas oo soo dalbaday in la siiyo qandaraaska dhismaha garoonka kulan ballaaran oo lagu qabtay garoonka ayna joogeen shirkadaha ayaa waxa uu ahaa mid shirkadaha loogu soo bandhigay qaabka la doonayo in garoonka loo dhiso waxaana u dhacay kulankan kulankan ballaaran oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka Puntland hay'adda UNOPS 22 shirkadood oo qandaraas qaatayaal ka socda caalamka ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha Bandar Qaasim ee Boosaaso kulanka waxaa lagu soo bandhigay qorshaha la doonayo in laga qabto garoonka diyaaradaha Boosaaso gaar ahaan samaynta wadada diyaaraduhu ku cararaan ee Boosaaso yeelan doonto kaasi oo la doonayo in laga dhigo mid caalami ah oo ay ku soo deegi karaan diyaaradaha waaweyn iyo kuwa yaryar intaba hay'adda UNOPS ayaa u soo bandhigtay shirkadaha 22 ka kooban ee qandaraaska daneynaya tusaalayaal ku aadan nooca garoonka la doonayo inuu noqdo qaybta runwayga sarkaal ka socda UNOPS ayaa sharaxay kulanka maanta The function of the pre-bid meeting is really to provide the opportunity for the contracting authority, in this case the United Nations Office for Project Services, UNOPS. Pre-bid meeting kan waxa loogu talagalay in qandaraaslayaasha loogu bineexiyo wax allaala wixii tashiis ku jiro oo ay su'aalahooda iyo wixii u baahdaan ay halkan ku weydiiyaan si nadiif ah loogu soo tartamado by the issues or raise queries that they have in regard to the tender.
amiin xaaji oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada puntland ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo hawsha garoonka boosaaso. waxay wasaaradda duulista hawadu xoogga saaraysaa inay deeqdu raadiso wixii la hayana ay hubiso sidii loogu talagalay inay u gasho. wixii su'aal ah oo aad ka qabtaan qaabka mashruucan u soconayo waxa weeye waynii furan tahay, waa transparent, wax qarsoodiya ma aha. maantana guushii aan doonaynay waa joognaa. dadweynaha reer puntland oo dhan mashruucan wuxuu u yahay waxay muddo badan sugayeen. wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka burcadbadeeda Saciid Maxamed Raage iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland ayaa si wadajir u sheegay in dowladda Puntland ay go'aansatay inaan laga qaadin wax canshuura qandaraaskan qalabkiisa. mashruuca kan dowladdu qaybteeda cashuuraha waxay ka qayb qaadatay inay dhaafto, waayo haddii kale uu baabaayaa wey. marka wax cashuura oo airportka ka saarayna ma jirto, wixii qalab oo halkaa imanaya total. intaas markaan ka gudubno waxa weeye wasaaradda maaliyaddu waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato mashruuca kan dhisida airportka boosaaso. waxaana raacaynaa warqadii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo loo diray qolada tenderka bixinaysay ama ku deeqay bixiyaasha ha 11 bishii August 2013. warqadaas ayaa waxay clarificaynaysaa ama cadaynaysaa habka cashuuraha looga qaadi doono ama sida loogu deyn doono, iyadoo baa cadaynaysa. marka iyadoo baan raacaynaa dhammaan qandaraas qaatayaasha waxaa la siiyey maalmo ay ku soo gudbin karaan qarashka kaga baxaya mashruucan dhismaha garoonka diyaaradaha boosaaso. haddii mid ka mid a shirkadahan ay ku guulaysato qandaraaskan waxaa laga doonayaa inay ku dhammaystirto muddo ku siman sanad ilaa sanad iyo bar, taasi oo muujinaysa in qandaraasku yahay mid la doonayo in magaalada boosaaso yeelato garoon diyaaradeed oo ay ku soo degi karaan diyaaradaha waaweyn ee caalamka u kala socda. garoonka diyaaradaha boosaaso ayaa sanadkii aynu kasoo gudubnay dhammaadkiisa waxaa si rasmi u shaaciyey in degdeg loo bilaabi doono madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo xilligaas joogay boosaaso. waxaana isla garoonka goobta la dhagax dhigayo kula hadleen isaga iyo dowladda bixinaysa qarashka lagu dhisay garoonka ee Talyaaniga. waxaa halkan maanta nala jooga injineer Giuseppe iyo injineer Frederic oo ka socda UNOP, United Nations Organization for Projects, oo ka socda hay-addaas oo ah deeqda dowladda Talyaaniga ay bixisay oo ku caawintay in aeroboortkan laga shaqaysiiyo oo laga dhigo aeroboort caalamiya oo laami ah in laga dhigo. iyagaa lacagtii loo dhibay iyagaa fulinaya oo cidda kontraada la siiyo la fulin. mas-uuliyiin ka socda dowladda Talyaaniga oo horkacayay injineer Giuseppe oo ka socda dowladda Talyaaniga iyo shirkadda hawshan wada mas'uulna ka qarashka ku baxaya ayaa isna goobta ka sheegay in looga baahan yahay shacabka ku dhaqan gobolkan iyo Puntlandba inay qayb ka qaataan dhismaha garoonka. That's why we have decided to come here and this is the first mission. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay uu yiri sidoo hore uu sheegay inaan mataqaanaa meesha tan imaado dowladda Talyaaniga iyo cilaaqaadka ka dhaxeeya dowladda Talyaaniga iyo dowladda Puntland cilaaqaadka ka dhaxeeya taasoo suurto gelisay in mashruuca la hirgeliyo si loo hormariyo Puntland guud ahaan si dadka shacbiga oo Puntland ay si nabadgelyo ah ugu soo dalkooda ugu soo deegi karaan ugana tagi karaan. mardowna waxaan rajaynaynaa inaan mishinkan aan nimi inaan soo abjarno. garoonka boosaaso ku yaala magaalo xeebeedka Puntland ee ganacsiga xarunta oo ah wuxuu noqon karaa mid caalami ah oo mashquul ah haddii dowladda deeqdan bixinaysa iyo maamulka ay ka dhabeeyaan waxqabadkooda iyadoo aan la hurayn in shacabka qaybihiisa kala duwan ee Puntland ay gacan ka geystaan dhismahan haddii ay ahaan lahaayeen kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha ku sugan. garoonka boosaaso munaasabadii lagu qabtay ay joogeen shirkadaha qandaraaska soo dalbaday waxaa lagu wareejiyey oo la geeyey dhulka garoonku ku fadhiyo iyadoo la tusay qalabka garoonka hadda yaala ee dhismaha loo isticmaali karo, kuwaas ay dowladdu sheegtay inay yihiin kuwa fasax u tahay shirkadii ku guulaysatay qandaraaska. inkastoo shirkadaha qandaraaska danaynay loo sharaxay habka garoonka loo dhisi doono diyaaradaha la doonay inay ku soo degaan, waxaa haddana dhagaha shacabka boosaaso ay weli sugayaan shirkadda loo xulan doono qandaraaskan oo haddii uu hirgaro boosaaso u horseedaya inay noqoto mid ay kasoo degi karaan diyaaradaha kasoo kaca garoomada caalamiga. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena maxamed deeq cabdalla oo warbixintaas tafada tira nooga soo diray magaalada boosaaso. haddii aan usoo noqdo barnaamijkan u gadagulo barnaamijka waxaa maanta marti nooga nasiib u yeelanay inuu nagala qayb qaato Abshir Saciid Axmed oo ah chemical engineer South Bank University kasoo baxay ehelna oo ah magaalada boosaaso. kusoo dhow barnaamijka Daldis. abubakar aad baa u mahadsan tahay. bismillaah suma salaatu wasalaatu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. marka aad baan kuugu mahad celinaya mar labaad. haddii aan ku bilowno dabcan dhismahan aeroboortku
faa'iidooyin badan buu leeyahay haddii aan bal qodob u istaagno u kor istaagno dhismo ahaan gegidaas oo la dhisaa dayuuradaha maxay kusoo kordhin kartaa magaalada Boosaaso isleeda ama Puntland dabcan dhismaha Bandar Qaasim airport magaalada Boosaaso kaliya faa'iido uma laha magaalada Boosaaso kaliya wuxuu u leeyahay deegaanka Geeska Afrika ama dunida oo dhan aan ku noolahay runtii waa mashruuc weyn laakiin faa'iidooyinka ugu weyn oo ishu qabanayso waxaan isleeyahay kusoo koobi karaa 4 ama 5 ay ugu horeyso dhisme intaa la eg la dhiso 3 kilomitir square in la dhiso oo laga dhiso gagi casri oo diyaaradaha dunida Boeing iyo Airbus ay ka degi karaanin waa faa'iido faa'iidadaas oo ah in infrastructure-kii wadanka ay ka qayb qaato dhismihiisa waxa kale oo iyana faa'iidada kamid ah dhaqaale abuur ay wadanka ku soo siyaasado shaqo abuur oo iyaduna garab socota markii dhaqaaluhu kobco waxa kobcay in dadkii shaqo helaaniin waxa kale oo iyadana aad kamid ah faa'iidooyinka ay soo kordhinayso mashruucan isu socodka oo fududaada dalkii dabadaba oo dabcan waan fiirin doonaa mid walba iyadoo faahfaahsan waxa intaas sii dheer dalxiiska oo deegaanka wadanka Soomaaliya guud ahaan laakiin haddana gobolka bari ay leeyahay meel aad dalxiiska u soo jiita ay fududeynayso dadku inay airportka inuu fududeyn dadku toos u gaaraan meelahaas haddii aan ka bilowno dalxiiska haddaan waxay kor istaagno dabcan magaalada waad ku dhalatay waa taqaanaa waxaa jirta waxyaalaha ay famous ama caanka ku tahay magaalada Boosaaso kale waxaa kamid ah biyo kulule oo ah meel dadku tagaan oo soo booqdaan bal meeshaas nooga sheekay runtii waa su'aal aad u soo dhaweynayo biyo kulule anigana naftadayda marar badan baa tagay aan soo koobi karin boqol badan goor ka badan waa magaalada Boosaaso haddii aan hada qiyaaso qaabka u dhigan tahay labada dhinac buuraa ka ah saddex يعني magaaladu waxay ku jirtaa triangle baan dhihi karaa dhinacna bad baa ka xigta labada dhinacna buuro ayaa ka marka dhanka bari ee magaalada meel 3 kilomitir ka yar u jirta ayaa waxa ku taala meeshan caanka ah la dhaho biyo kulule waa il dabiici ah oo biyo ka soo boodayaan biyahaas oo biyo kulul ah oo biyo aan koronto la marin wax ka dab lagu shidin oo kulul faa'iidooyinka ay leeyihiin waxa kamid ah caafimaad badan dad badan oo jirooyin qaba ay daweysaa oo waxyaabo la xiriira jirooyinka jirka marka waa goob taariikhi ah waa mucjisooyinka kamid tahay biyo dabiici ah oo yani qofka normalka wuxuu isdahaya see biyahan u kululaada ilaahay baa qadarta ilaahay kamid tahay haddana waa wax aad loola yaabo waxayna kamid tahay goobaha magaalada caanka ku tahay biyo kulul marka Boosaaso waxa soo tago biyo kulul la soo qaada dhinaca dalxiiska haddaan fiirno dabcan Boosaaso magaalo weyn weeye oo qadiimi ah dad badan waxa la oran karaa reer Boosaaso ama ganacsiga rugtu ganacsiga oo Puntland weeye airportkaas weyn oo internationalka furma sidee buu u kordhin karaa ayaad isleedahay ama dalxiiska ama qurba joogtaba inay ku dhiiradaan iyagoo macnaha ka walwaleyn inaysan diyaarada ka daahayn ama aysan flight helayn inay ku dhiiradaan 2 wiil gudahood inay ku soo boqon karaan London inta ka tagaan Boosaaso intaanan su'aashaada qaybteeda dambe ka jawaabin waxa xusid mudan magaalada Boosaaso waxay kale oo leedahay goobo dalxiis ka soo magaalada qadiimiya oo 200 sano dhisan ka soo magaaladu waa magaalada ugu weyn Puntland ahna la dhihi karo magaalada labaad ama magaalada saddexaad ee Soomaaliya weeye xaq dhaqaale iyo xaq xajmi oo weynaanba haddana waxa magaalada koonaradeeda saaran isla goobo dalxiis waxa kamid ah Karin iyo laag haddii aan ku hormaro waa goob waxaan dhihi karaa waa hog Europe ah afka qalaad dadku waxay dhahan diving waa ku dabaalan kartaa waxay kamid tahay meelaha galabta jimcada dadku u aadaaniin inay ku soo faakaystaaniin dabcan dad badan oo aan Boosaaso tagin haday arkaanin
la yaab wey waxyaaba aada ay ula yaabayaan ay ka helayaan waxaa intaas sii dheer waxaan aragnaa dad sharma sheikh iyo dalxiis u taga waan la habayn maahay meelahan macni anigu in my opinion caqligayga way ka qurux badan tahay laag iyo karinba haddaan usoo laabano dadka u dhoofay oo ka tegaya Yurub iyo Mareykanka iyo Carabahaba fududeynta ay keenayso garoonkan la dhiso gigida diyaaradaha dabcan garoonku uu dhisan yahay oo terminaalku uu dhisan yahay 2009 waa la dhisay laakiin barxadii ay diyaaraduhu ku degayeen ama runwayga waxa Ingiriiska lagu dhaho waxay fududeynaysaa qofku soo London jooga inuu 3 days ama 4 days macni in ka yar 12 saac 13 saac oo boos ku joogo London ka tago ama New York ka soo duulo Dubai boosaaso diyaaradihii oo maalin kasta ku taga marka waxay sahlaysaa waxaan xasuustaa hadda qiso caqabadaha hadda laga gudbayo ay kamid tahay in familkayga qof kamid uu u tagay booso in soo booqdo ehelkii markii uu soo laabanayay diyaaradaha la isticmaalo hadda waxa diyaaradahan raashiyaanka ah oo qarnigii 18aad la dhisay garoomada caalamiga hadda aan safety issue darteed ka badoofi karin marka inay diyaaradii la jabto ay ku khasbanaadaan inay gaari raacaan oo berbera ka soo dhoofaan marka waa caqabad laga gudbayo marka la dhiso aad iyo aad dabcan shaki kuma jiro inay fududeyn doonto arrinta dalxiiska waxaan rajaynayaa dad badan inay ku dhiirin doonaan oo ay fududeyn doonto qurba joogta iyo wadanka xiriir ka dhaxeeya qurba joogta iyo wadanka haddii aan wax yar kor istaagno dabcan dawladdu way arrintan way taageertay waxay ka dhawaajisay inay canshuur dhaaf wax walba laga soo dejinayo airportkaas ku socda ay ku sii deynayaan waxa kale sida wariyuhu Carabaabiyay oo tilmaamay inaan loo baahan yahay doorka qurba joogta iyo ganacsatada ka soo jeedaba sideeba isleedahay uga qayb qaadan karaan horta waxa xusid mudan inaan ogaano mashruucan waa mashruuc weyn qadarka dhaqaalaha la sheegay inuu ku baxay waa 10 milyan taas waxay ku tusinaysaa 10 milyan in 90% ay deegaanka galayso wax yar oo fee ay qaataan in shirkadaha ajnabiga ma ahay dadka ka shaqeynaya inay yihiin dad u dhashay gobolka oo local ah in dawladdu in long term ay ka helayso faa'iido markii garoonku dhismo oo maalintii 5 ilaa 6 diyaaradood ka degto waxa fududaanaysa in dad badan wadankii dhaqaale soo galeen cashuur laga qaado waxa intaas sii dheer badeecadaha in laga dhoofsho oo cargo dunida oo dhan loo diro marka waxaan dhahayka wuxuu bilow u noqonayaa faa'iidooyin badan aad iyo aad haddaanu dabcan bahda daldhisnahayna waan boorinaynaa qurba joogta iyo ganacsatadaba inay ka qayb qaataan oo ay doorkooda ka ciyaaraan iyadoo runta dawladdu tafaxaydatay inay airportkaas meel uga soo harato oo ay iska dhamayso daawadayaasha ayaan wax ka siin doonaa taleefanka dhinaciisa sidoo kale emailka shaashada ku qoran ayaad noogu soo diri kartaan wixii fariin iyo tala iyo tusaaleyna waxa kale iga xasuusin haddii aad tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya barnaamijku goluhu waa kuu furan yahay weliba baryahan waxaan aada u xiiseynaynaa magaalada Muqdisho iyo isbedelka badan oo ka socda la soo xiriir barnaamijka ayaan leeyahay qofka oranaya fiirinaya alo salaam calaykum calaykum salaam haye walaalay magacaaga meesha ka soo hadlaysid wala Leila Ismaan Ballidan Leila haye maxaa ku darsanaysaa waxaan ku darsanayaa assalaamu calaykum عليكم السلام waxaan ku darsanayaa horta wiilkan aad buu maasaya booso sax ay siinay laakiin meelo badan oo waxa jira gobolka bari ee dalxiiska loo tagi karo sida magaalada isku shuban oo kale oo biyo oo waxay leedahay jidna uusan gelin waxna gelin yani magaalo aad loo baabi'iyay oo dawladuhu aysan waxba u qaban marka meelo badan oo kale oo kasii qurux badan baa jira boosasana aad bay u fiican tahay in airport loo sameeyo because anigu juulayda hadeer baan ka imi diyaaradaha waxaan sii maray berbera 5 saacadood baan fadhiyay haddana waa sii gudbay rafaad diyaarad yar oo daasada oo kulayl badan baan raacay rafaad lacagtu way badan tahay waa 1,000 pound aad iyo aad baan dee nolol aad u adag bay ahayd marka insha Allah Leila waxaa laga yaabaa marka fasaxaaga dambe
inaad diyaaradda London kaga dhoofto aad Boosaaso uga degtid arrintaas maxaad ka leedahay I wish inaan helo I wish insha Allah dabcan way ku maqlayaan ganacsatada iyo dawladda iyo cid walba waana arrinta runtii loo boorinayay in dalka horumarkiisa fadal ما شاء الله ليلى وما حسنتهاي طبعا اسكو شوبن كمان انتجين لكن معني صومالي أردن بوعد كس اريا كستا و يونيك و دول وحيلا ده وحيابا نفتو سو جيدته او دالحيس له waxaan diiradda saarayna magaalada Booso iyo waxyaabaha ay offer garayso dabcan haddaan ku soo noqdo pointiga ay Leyra ka dhawaajisay ah in dadka rafaadka haysto safarkooda waxay ka mid tahay faa'iidooyinka uu keenayo dhismaha airportkan in isu socodkii fududaado in qofka jooga London oo kale uu halka baxo hal transit kaliya galo meesha 3-4 transit galayo London Dubai laga yaabo ama Djibouti kadib Djibouti kadib Berbera kadib Boosaaso macni waa hectic Leyla ugu dambeysay dadkii dhibaatada ka soo arkay marka waxa fududeynaysa diyaaradahan waaweyn ee Airbus iyo Boeing inay ka degaaniin waxa kale oo ay fududeynaysaa oo aan aad u muhiima inaan xusno wadankan maalgashi la gashado ganacsatada deegaanka soo jeeto iyo kuwa caalamiyaba waxyaabaha airport oo la dhiso fududeynaysa waxa kamida dad entrepreneurs oo xirfadlayaal inay waxyaabo dadka inta badan ishu qaban laakiin aad important ah waxa kamida maintenance-ga airport-ki waa la dhisay laakiin waa in la dayactira waxay u baahan yihiin xirfadlayaal dayactira sidoo kale in markasta testing lagu sameeyo dhismihii la dhisay si birihii madaxleen marka waa ila dhaqaale oo soo kobcay waa shaqo joogtaa bay noqonaysaa dabcan bal dhinaca telefoonada ayaan mar kale eegaynaa qofkaas ku xiga aan fiiriyo iyadoo qadka aad looga buuxo sidoo kalena waxaad emailka noogu soo diri kartaan bal qofkaas aan fiiriyo allo salaam calaykum aad baan ugu xamaay qofkaasna waa ka go'ay qof ku xiga aan fiiriyo allo salaam calaykum calaykum asalaam waraxmat walaal qadka telefoonka igala soco TV-ga iska gaabi magacaaga meesha ka soo hadlaysid walaal magacay waxa weeye Axmed Yuusuf Saciid waxaana joogaa loo magacaabo Axmed Dheere waxaana joogaa magaalada Boosaaso ma sha Allah Boosaaso soo dhawow Axmed Yuusuf aad iyo aad baan u dhawahay marka hore horta TV-ga kala socday laakiin hadda baan ka yara fahmay telefoonka kala socda runtii horta aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa barnaamijkan caawa ee noo qabatay Somali Channel oo barnaamij runtii aad iyo aad reer Boosaaso aan ugu faraxsanahay maadaama uu yahay dhulkay hooyo iyo magaalada Soomaaliya oo idinba barnaamijkan uu faa'iido u yahay runtii waxaan oran lahaa airport-ka magaalada Boosaaso waxa weeye waa airport runtii u faa'iido dhammaan magaranaysaa Puntland oo idin iyo Soomaaliya oo dhan maadaama ay ka fargarayso dekada nadan salaam soo qaato dekada weyn magaalada Boosaaso Puntland dhan ka fargarayso iyo Soomaaliya oo dhan marka waxaan dhihi karaa waa second way resource soo baxa imanaya oo magaranaysaa ka fargarayn karaa ilaa dowladda dhexe ilaa Soomaaliya ilaa magaranaysaa Soomaaliya oo idin haddii uu sida loo haboon u qabsoono aad iyo aad waxaan kaloo rabnaa ganacsatadana aan kula talin lahaa inay barnaamijka runtii ay isha ku hayaan oo magaranaysaa laga daacad noqdo oo gacan bidixaynka ayna ku iman dhaqaalaha yar hadda magaranaysaa soo gaaray dowladuna ayaan oran magaranaysaa hadda xilka ayaan ku sii tagaynaa ay noqoto ka fikirto long term-ka iyo magaranaysaa waqtiga dheer iyo magaranaysaa ay noqoto ka fikirto waqtiga dheer ee soo socda iyo dadka kale future mustaqbalka laga fikirto joogtuna waxaan oran lahaa inay barnaamijka ayna ka qaataan weyn aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed fikirkaaga iyo talooyinkaagana aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu qanacsanahay runtii inaad magaalada Boosaaso nagula soo hadashay reer Boosaasona nagu salaan dabcan fikrado aad muhiim u soo jeediyay waxaad ka oranaysaa arrintan runtii Axmed wuxuu ka dhawaajiyay qodob aan rabay inaan bal wax ka iraahdo oo ah dhaqaalaha iyo opportunitiska ka furmaya dabcan magaalada Booso waa magaalada dhanka xajmiga dhanka dhaqaale ugu muhiimsan
deegaanka Soomaaliya liana dekada boosod waxay ka fargaraysaa ilaa gobolada dhexe sida Galguduud iyo Hiiraan dhanka maxaan ku sheegi karaa badeecadaha ka soo dega waxay gaaraan ilaa kilinka shanaad ama Soomaali loo yaqaano deegaanka Soomaaliga Ethiopia marka ganacsatadaas deegaankaas hantida ku haysta waxay u fududeynaysaa in ay si fudud caalamka ugu dhoofaan oo badeecada uga soo iibsan kuwa ay wadan ka soo go'aan ugu iibgeeyaan waxa xusid mudan si gaar ah gobolka bari waxa ka soo baxa wax soo saar ka duwan gobolada Soomaaliya inta badan oo ka soo go'a buuraleydaas golis waxa la dhahaa waa xijiga ama dadka u yaqaaniin beeyada iyo fooxa iyo oo noocyo badan waxa dekada Boosaaso laga dhoofiyaa waxa la geeyaa wadamada Carbeed kadibna Carabtu intay labelka bedesho waxay ku qoraan Arabian Gum oo waxay u iib keenaan duridan aan joogno waxa dhexda ka baxaya meeshii saddex wadan sii mari lahaa inay toos u timaado siladaha caalamka oo Europe iyo Mareykanka oo si fudud airportka looga soo qaado sidoo kale dabcan maadaama Boosaaso ay tahay magaalo xajmi weyn oo dhaqaale dekadu ay offer garayso dhaqaale badan dad badan oo ganacsato ah joogto waxay fududeynaysaa in hoteelo waaweyn oo magaalada kuwa hadda jira kuwa ka sii casrisan laga dhiso oo dadka dalxiiska u tagaya ay u fududeyso waxa kale oo xusid mudan in يعني airportku uu noqdo baax magaaladii u noqota iconic aad iyo aad طبعا aad iyo aad baan u boorinaynaa annaguna sidoo kale hadaan baahda dal dhisnayn waxaan leenahay mar labaad ku celinaynaa ganacsatada iyo dadweynaha iyo qurbo joogtaba arintaas ka qayb qaateen dawladuna waa tii sheegtay oo tiri arintaas waanu ka qayb qaadanaynaa inta doorkayaga laakiin waxaan ku boorinaynaa inay si kal iyo laaba arintaas uga qayb qaadato Boosaasana dekada ugu weyn ha yeelato laakiin fursad waxay u haysataa airportka ugu weyn dalkana inay yeelato labadaas ba isku darsato reer Boosaaso hawl culus ba idinka laftigiina contribution-kiina la idinkaga baahan yahay ka qayb qaata dhinaca telefoonada ayaan mar kale fiirinayaa bal qofka ku xiga aan fiiriyo dhinaca telefoonada qofka ku xiga u gudbaya hello salaam alaykum qofkaas waa ka go'aan ka xumahay iyadoo qadka aad looga buuxo bal qofka ku xiga aan eego waxaad sidoo kale emailka noogu soo diri kartaan qolo salaam alaykum alaykum salaam haye walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysid waxaan ka soo hadlayaa South Africa walaal TV-ga iska gaay maxaad ku darsanaysaa barnaamijka fadal waxaan ku darsanayaa aad baan uga xumahay gabadhaasna waa ka go'ay South Africa ka soo salaamaysay ka soo wacaysay dadweynaha reer South Africa waa salaameynaa nabad iyo khayr baan u rajeynaynaa iyadoo meeshaas dhowr mar qaladaas badan ka dhaxeen ayaan fursadan anoo ka faa'iideysanay waxaan leeyahay nabadiina ilaashada dalkiina ku noqda hello salaam alaykum wa alaykum salaam haye walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysid magacaygu waa Cabdirasaaq Cabdirasaaq fadal TV-ga iska gaabi qadka taleefanka igala soco maxaad ku darsanaysaa okay waxaan ka soo hadlayaa walaalka Ismaaciil Makrad haye soo dhawow adhow haye maxaa ku darsanaysaa ma waxa waaye wax deeqmiya loo aruurinayaa mise fikir baa ku darsanayaa fikirkaaga maxay kula tahay Kismaayo waxa laga dhisayaa airport caalami Boosaaso aad ayaan uga xumahay qofkaasna uu ka go'ay waxaan ka codsanayaa farsamayaqaanka inuu qofka ku xiga ii soo gudbiyo iyadoo qadka taleefanka aad looga buuxo hello salaam alaykum waa u soo noqonayaa dhinaca telefoonada dadweynaha dabcan waxaad moodaa inay arrintan aad u xiiseynayaan waxaad kaloo oo runtii aad muhiimad u leh airport intaas runwayga intaas la eg oo diyaaradaha adduunku waxaa la oran karaa British Airways oo kale ku dhiiran karta Soomaa hadii la helo garoon intaas la eg ay ka degan karto Soomaa dabcan ha runtii waxa weeye
sidii aniguna aan ku arkay ishayda dad badanna ay arkeen qofkiina soo wacay leylana ka dhawaajisay inay dad ku dhibaatoodaan u safridda Boosaaso oo dhanka diyaaradda haddii airportkan uu hirgalo waxa fududaanaya diyaarad kasta oo caalamka macni jiraha fleetskaayo inay ka degi karto waxa kale xusid mudan inaan dib u fiirino airportka Boosod wuxuu soo socday in muddo ah oo hadda la dhihi karo 10 sano marka waana yaayiro aad u weyn in maanta airportkii uu noqdo la dhihi karo 12 bilood kadib ugu yaraan Boosas airportkii dadku waxa ka ba'aya dhibtii laga haystay arrintan 12 bilood ma realistic ba ma go'aan cad ba goormay shaqada bilaabanaysaa طبعا de anigu dawladda Puntland uma shaqeeyo oo ma ogaan karo laakiin contractiga nimankan goorma la go'aan kale laakiin waxaan ognahay in 18 bishan lagu ballamay shirkadii qandaraaska qaadan lahayd lagu dhawaaqo 19 bishii hore in shirkadaha loo bandhigay 20 shirkadood shirkad kasta la dhaxay ka soo hanti dhaqaalaha in kaga baxay iyo waxaad sameynaysan soo caday airportkan rabno ya timekan rabno marka 18 bishan ayaa waxa lagu dhawaaqaya shirkadii ku guuleysatay qandaraaska kadib waxa bilaabanaya hadaan wax dhibaato kale soo cusub dhicin in airportkii la dhiso realistically mashruuca noocan oo kale ah wuxuu qaataa 12 bilood ilaa 18 bilood waa marka ugu yar marka qaarkood dhaqaale hadaan dhaqaalaha uusan xumaan waa 12 bilood haddii wax isbedelaan wuxuu gaari karaa 3 sano qaab inaysan rajeynaa kale dabcan inay waqtigaas sida ugu dhaqsaha badan ku dhamaato qofku xigaan u gudbaya assalaamu calaykum hello assalaamu calaykum calaykum salaam ayo walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysa maxaa ku darsanaysaa Faadmo Ismail yiraahdaa walaal ayo Faadmo fadal waxaan rabaa walaal inaan fikrad ka dhiibto soo daa fikrad life baad ugu jirtaa maxaa ku darsanaysaa walaal waa mahadsan tahay caaw barnaamijka aan arkayno dal dhisna maasha Allah horta adiga Allah ku xafido waa marka ugu horeysa wiilka yarka maasha Allah ilaahay cilmiga barana Allah u zaaidiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maxaa la yiraahdaa mashruucan hadda airportkan la dhisayo Boosaaso waana wax dadka wax weyn u qaban doona hadii alla yiraahdo insha Allah oo aan kaga reysanayno hadda hello ku maqlay walaale oo aan kaga reysan doono dadka iyaga markaan halkaan ka baxna aan marayno meelo badan oo aan raali ka ahayn oo na jeclayn inaan transit ku noqono inaan hadda ka kaaftoomi doono hadii alla yiraahdo oo toos meel kastoo joogno markaan uga dhoofno wadankeena aan hadii alla yiraahdo aan uga degi doono airportka iyaga Bandar Qaasim ilaahayna cimri iyo caafimaad nagu gaarsiiyo dadka wada iyo mas'uuliyiintana Allah u fududeeyo reer Puntland waxaan ilaahay uga rajeynaynaa dad isku duuban oo dantooda iyo danahooda karta in ilaahay ka dhigo adinkana waa mahadsantiin daldis sidaas ayaan waxaan ka rabnaa inaad mar walba aad noola socotid insha Allah aad iyo aad baad mahadsan tahay dabcan barnaamijka daldis doorkeeda ayuu ku leeyahay Puntland inkastoo cid walba u dhaxeeyo aan Burco iyo Xamar iyo Baydhabo iyo meel walba ku soo qaadano laakiin fikirkaaga aad baan u soo dhaweynayaa diirnaan baa dabcan ka muuqata dumarka aad iyo aad dabcan insha Allah waxaan rajeynaynaa mashruuc sidii loogu talagalay uu fulo faa'iidooyinka uu leeyahay in badan baan xusnay waxa xusid mudan maadaama hadda aniga hore ka jawaabay barnaamijka inuu ahaa barnaamij socday ilaa 15 sano in gaarays marka isbedel siyaasadeedna wuu jiraa oo soo socda waxaan rajeynaynaa inaan siyaasadda aysan saameyn ku yeelan mashruucaas aad iyo aad dhinacaas siyaasadda lafteedana haddii laga fiiriyana waxaa la oran karaa waxay noqon kartaa airportkan legacy ay dawladdani ka tagto haddii ay joogtana waxay noqon kartaa runtii contribution weyn oo ay dawladdani gobolka bari kusoo kordhiso mar walbana waa ku kalsoonahay dawladda Puntland oo looga bartay horumarinta dalka iyo dadka inkastoo airportkan xoogaa yar dahay laakiin waa ku boorinaynaa waana ku dhiirinaynaa waana ku gujinaynaa waliba in arrintaas laga soo jeesto oo airportkaas la dhameeyo dhinaca kale haddaan fiirino airportku markuu dhismo shaqo abuuris badan baa bilaamaysa dadka ganacsatada waxaa jira dheergaradoo ganacsigu meesha ganacsigu ka soo socda garan kara
dabcan waxaa bilaabanaya airborku markuu international noqdo shops baa bilaabanaya car rent baabuurta ijaarka bilaabanaya hoteelaa bilaabanaya u dhow airborka ganacsatada reer Puntland ama reer Boosaasoodba kasoo jeeda oo la oran karo ganacsiba waxay ku haystaan East Africa ama reer galbeedka oo xoogaa weli isleh wal u kaadi ma isleedahay waxa la gaaray timekii ay gameka ka hormari lahaayeen oo ay sii maalgashan lahaayeen magaalada runtii waa su'aal aad u muhiim ah waxa xaqiiqo ah in mashruucan dhaqaalaha ku baxaya markaa fiiriso waxay ku tusinaysaa in 99% amniga deegaanka uu yahay amni lagu kalsoonaan karo macnaheedu businesska waxa ugu muhiimsan inuu amni jiro dhaqaalaha uu abuuri karo wali hadda projection lama samayn laakiin billion isu gaaraya ka sokow shoobabka airportka dhexdiisa laga dhiso waxa ka badan serviceka joogtada airportka u baahan yahay ha ahaato shidaal ha ahaato dadka kasoo degaya waxyaabaha ay u baahan yihiin saacad kasta ha ahaato shirkada abuurma oo shirkada dhisaysa ajnabi way ma haysato local manpower waxay haysataa waa dhowr engineer inta kale waxay ka imaanayeen gudaha dalka marka waxay noqonaysaa in shirkadu ay siiso qandaraas subcontractors shirkada local marka shirkadahaas maxay macni hadda maanta waxa weey fursadaha ugu muhiimsan qofkii ka faa'iideysan kara waa golden opportunity walaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay in general maxaa fariintaada ku aadan Puntland iyo Boosaaso fadal briefly bismillah horta reer Boosaaso macni airportkan wuxuu u noqonayaa wax aad u weyn oo ku soo kordhay Boosaaso Puntland oo dhan ilaa Soomaaliya laana waxay ka mid tahay qofka hadda ka dega wadankeena waxa uu dhibaatooyinka u arko waxa ka mid ah safarka marka waxa laga badbaadaya dhibti safarka labo dhaqaalaha dadka ganacsatada waxa u fududaanaysa inay si fudud badeecadahoodana uga kala gooshaanin uga ka safraanin wadanka waxaan aad talo ugu dirayaa dawladda deegaanka iyo dadkaba talada aan dirayo waxa ay ku saabsan tahay maadaama mashruucan yahay mashruuc aad u weyn dhaqaale badan ku baxayo impactiga uu yeelanayo uu yahay wax sanooyin dambe faa'iidadiisa la saameynayo in laga taxadaro oo looga taxadaro inuu sidii loogu talagalay u fulo dabcan si uu u fulo waxaan aniga tala ahaan ku soo jeedin in la sameeyo guddi madax bannaan siyaasadana ka madax bannaan shirkadaha ee qandaraaska qaatana ka madax bannaan guddigaas shaqadiisu noqoto in ay kormeer ku sameeyaan hubiyaanin xaraf kasta meeshii loogu talagalay inuu galo bool kasta meeshii la dhahay la geliyo in la geliyo shilin kasta meeshii la dhahay in lagu bixiyo in lagu bixiyo dhanka kale marka u fiirino waxa waa bil dhalatay runtii waa talo aad u muhiima engineer Abshir Saciid Axmed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxa la soo gaaray guntii gabagabada waxaan u mahadcelinayaa injineerkeena Cabdullaahi Farna iyo soo saaraha barnaamijka Saciid Fadheeye galabta Boosaasan ahayn waxa laga yaabaa wiiga dambe inaan Baydhabo tagno laakiin waxaan idinku leeyahay radii aad tahay mid dadaalo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya oo adigu galabta daawanaysid waxa laga yaabaa wiiga soo socda midkii hor fadhiya inuu adiga noqdo la soo xiriir dallis@somalijournal.tv waxaan kaloo runtii fariin qaas u dirayaa dibudhiska ballaaran ee ka socda magaalada Muqdisho barnaamijka Dallis wuxuu u gacan haatinayaa mar kale magaalada Muqdisho oo insha Allah weeyga soo socda aan booqan doono waa aniga iyo farsamayaqaanada iyo dhamaanteeda bahda Dallis oo isku duuban oo idin leh dhista dhulkiina qubaqaadka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh